Subscribe saar halkan si aad u hesho muuqaal walba oo aan halkan soo gelino. Mahadsanid. Beri baa waxaa jiri tagtay tuulo yar. Tuuladaas waxaa ku noolaa nin la yiraahdo Raaju oo la noolaa xaaskiisa lagu magacaabo Miski. Maalin maalmaha ka mid ah ayay Miski hooyadeed soo wacday waxayna u sheegtay inay caafimaad darro dareemayso oo ay aad ugu xiistay Miski tan iyo markii ay guursatay. Markaas ayay Miski hooyadeed ku tiraahday, "Hooyo, habeen dambe tareenka soo raac oo maalmo ila joog, caafimaadkaaguna wuu hagaagi doonaa." Hooyadiina way ka ogolaatay. Raaju oo diidan inay sudeedis timaado ayaa wuxuu isku dayay inuu xaaskiisa ku qanciyo inay dalxiis tagaan, laakiin Miski way ka diiday inay u raacdo dalxiiskaas waxayna rabtay inay hooyadeed geyso meel caafimaad leh. Subaxdii markii la gaaray ayuu Raaju soo aaday dhankii tareenka si uu Miski hooyadeed u soo qaado. Miski hooyadeedna markay aragtay Raaju way cayday maadaama uu wato baaskiil duug ah halkii uu mooto iibsan lahaa. Raajuna wuxuu si ula kac ah ugu kaxeeyay waddo burbursan, baaskiilkiina wuu rogmaday. Miski hooyadeedna lugta ayay ka dhaawacantay. Miski hooyadeed markii xanuunkeedu sii kordhay waxay ku qasbanaatay inay cisbitaalka geeyaan. Saaxiibkii Raaju ee lagu magacaabo Kulu wuxuu kula taliyay cisbitaal qaali ah inuu geeyo subaxdii, laakiin Raaju wuxuu doortay cisbitaal aad u jaban oo raqiis ah oo la yiraahdo Lohia Hospital oo dadka deegaanka ku sheegaan inuu yahay cisbitaal jin ah oo jinniyadu degaan. Habeenkii markii la gaaray cisbitaalka aad buu u madoobaaday, bukaan kalena ma joogin. Dhakhtarka meesha joogay wuxuu sheegay in halkaas ay degan tahay jinni, habeenkiina qof kasta oo ay aragto ay waxyeelayso. Hooyadii Miskiina markay aragtay naagta ruuxaanta ahayd oo horteeda taagan, xanuun darteed way qeylisay. Taasina waxay kicisay jinniyadii. Cod cabsi leh ayaana laga maqlay cisbitaalka. Dhakhtarkuna wuxuu isku dayay inuu dejiyo Raaju iyo xaaskiisa. Ugu dambeyn naagtii ruuxaanta ahayd way timaaday, waxaana lagu kala orday sidii loo badbaadin lahaa Miski hooyadeed. Dhakhtarka iyo kalkaalihii oo qoryo ololaya wata ayaa yimid. Ruuxaantiina way baqday balse waxay gashay gudaha jirka hooyada Miski. Dhakhtarkiina wuxuu xiray Miski hooyadeed si ay naagta ruuxaanta ahayd uga baxdo. Dhanka kale, Raaju iyo saaxiibkiis Kulu waxay dib ugu soo noqdeen guriga iyagoo ka qaranaya Miski waxa dhabta ah ee dhacay. Miskina waxay go'aansatay in subaxdii ay hooyadeed ugu tagto cisbitaalka si ay u ogaato xaaladdeeda caafimaad iyo xanuunka haya iyo baaritaanka meesha uu marayo.